عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada cashirkeennii general psychology ee cutubkiisii shanaad oo ku saabsan motivation and emotions. Motivation waxaa la yidhahdaa dhiirigelinta ama wax kastoo shayga ruux wax ku dhiirigeliya la yidhaha ama wax kiciyana waxa muxuu ahaay ruux dhaqaajiya wax noocaas la yidhahda. Emotions iyagana sidoo kale waxaa la yidhahdaa dareenka ama dareen muujin ayaa la yidhahdaa. Waan arki doonaa mid kasta keligii qeexdiisa waan arki doonaa. qaybta koowaad hadda waa motivation. Definition and the types of motivation. waxaan arki doonaa qeexda iyo qaybaha ku kooban yahay muxuu ahaay motivation. Motivation is a factor. dhiirigeliyaha ama muxuu ahaay dhaqaajiyu is a factor. waxaa la yidhi waa saameeye by which kaasoo activities howlaha howl kasta oo wax kasta ood qabanayso are started lagu bilaabo directed lagu jiheeyo and continued laguna sii wado waxaynaad howl bilowdo jihayso sii wado ku dhaqaajiya so that si physical or psychological needs or wants are met si baahiyaha duleed iyo kuwa psychologiyeedba loo gaaro. The word itself comes from the Latin word mover. ereyga baa la yidhi wuxuu ka yimid lafahantiisa ereyga laatiinka ee mover macnihiisu yahay which means kaasoo macnihiisu yahay baa la yidhi to move in la dhaqaajiyo xaggaa weyaan muxuu asalka ereygu ka yimid. Motivation haddaba qeexdeedii weli sii socotay waxaa weeye what moves people to do things they do waxaa weeye what moves waxa ku dhaqaajiya people dadku to do inay sameeyaan the things shayaasha they do ay sameeyaan. For example tusaale ahaan when a person is relaxing in front of a television waxaa marka uu ruuxu iskala bixinaya ama iska fadhiya baa la yidhi muxuu ahaay TV hortii and begins to feel hungry una bilaabo baa la yidhi ruuxaas inuu gaajo dareemo. The physical need for food baahida duleed ee ah ama baahida duleed ee cunto u baahan yahay may cause the person to get up ayaa laga yaabaa baa la yidhi ruuxa inay ku dhaqaajiso inuu kaco go into the kitchen jikada u aado tago and search for something to eat una raadiyo wax uu cuno. If hunger is great enough hadday gaajadu sii weyn tahayna baa la yidhi the person may even cook something ruux waxaa laga yaabaaba inuu cunto karsado oo markaa waxay ku dhaqaajisay maxay ficil ayay ku dhaqaajisay. There are waxaa jira different types of motivation. intaan hore soo aragnay waa maxay waa definitionka wax kasta oo ficil inaan sameynay nagu dhaqaajiyo ama sabab u noqdo ayaa la yidhahdaa muxuu ahaay motivation lagu qeexo. haddaba types ayuu leeyahay motivation. There are waxaa jira different types of motivation qaybo kala duwan oo iska leeyahay motivation but laakiin it's possible to categorize them into two. laakiin waxaa suuragal baa inaad u kala qaybiso laba qaybood oo kala ah intrinsic iyo extrinsic motivation. waxaa la yidhaha intrinsic waa wax kasta oo dhiirigelina oo ruuxa gudihiisa ka imanaya ayaa la yidhahdaa iyo intrinsic. Extrinsicna waa kasoo horjeedkeeda wax dibadda ka abalay waa qeexdeedii wacta. Intrinsic motivation is a type of motivation waa nooc ka mid ah baa la yidhi dhiirigelinta in which kaasoo a person acts oo ruuxu baa la yidhi u dhaqmo because sababtoo ah the act ficilku the act itself is rewarding ficilka ayaa la fahantiisa baa la yidhi abaalmarin ah oo ruuxu or satisfying ama ruux u qancinaya baa in some internal man qaab gudaha u qancinaya oo gudaha nafsiyan buu ruux ugu qanacsan waxaan uu sameeyay marka taa waxaa la yidhahdaa maxay intrinsic motivation. Extrinsic motivation iyaduna is a type of motivation in which cause individuals ashkhas ama dadku act ay u dhaqmaan ama ficilkan u sameeyaan because the action leads sababtoo ah ama sababtoo ficilkan u sameynaya waxaa weeyaanba ficilkan ayaa wuxuu u horseedayaa to an outcome natiijo that's external to a person taasoo dibadda ka ah ruuxa. For example tusaale ahaan giving a child money for every A on a report card waxaa la yidhi ilmaha inaad siiso lacag ee kasta uu keeno kaarkiisa muxuu ahaay tusaalehaan muxuu ahaa kaarka natiijada ee mar kasta uu keeno inaad lacag siiso marka waa dhiirigelintaas ilmahaas inuu muxuu ahaay dadaalo dhibca keena ah wax dibadda ka ah ku dhiirigelinaya. sidoo kale offering a bonus to an employee for increased performance inaad siiso baa la yidhi wax dheeraada shaqaalaha ama ruux ku shaqeynaya mar kasta oo hawl qabashadiisu uu sii kordhiyo. haddaba waxaan arkaynaa iyagana approaches to motivation ama theories of motivation aragtiyaha ku saabsan muxuu ahaay motivationka
qaabo ka shay muxuu ahaay loo qeexa ama loo sameeyo loo yaa la yidhahda approach. Marka the source of motivation are different. Ilaha motivationka laga helo ee dadka dhiirigelinta laga helaay way kala duwan yihiin according inagoo u fiirinayno to the different theories of motivation. Aragtiyaha kala duwan ee motivationka inagoo fiirinayno aragti kasta wax gaar ah ayaa dadka motivation ama dhiirigelin u sameeyay. Some of these theories are instinct, drive, reduction, arousal, incentive, cognitive and humanistic. qayb ka mid ah waa kuwan marka mid baan arkaynaa. Ta koowaad instinct approach to motivation waa qaybtan waxay ka hadlaysaa wax dhiirigelinta sameynaya inuu yahay wax ruuxa ku tabaacsan oo gudihiisa. One of the earliest theory of motivation that's focused on the biological determinant and the innate patterns of both humans and animals behavior is called instincts. Haley one of the earliest theory of motivation mid ka mid ah aragti ugu horreeyay dhiirigelinta that's focused on taasoo diiradda saarta the biologically determined and the innate patterns qaababka biology ahaan loo go'aamiyay sidoo kale ama qaababka ku ruuxa ku dabeecaysan ee bini'aadamka iyo xayawaanku way leeyihiin dabeec ayaa la yidhahdaa maxay aragtida noocaas waxaa la yidhahdaa instincts ama aragtiyaha noocaas ayaa la waxyaabahaas la yidhahdaa instincts dadka dhiirigelinaya ee ku dabeecaysan. Just as animals are governed by their instincts to do things sida baa la yidhi xayawaanka waa ay u maamulaan waxyaabaan ku dabeecaysan si ay u qabtaan shayaasha sida migrating, nest building, mating and protecting their territory. Haley inay meel ka qaxaan oo xayawaanku meel ka tagaan meel kala tagaan inay buulal saaraan oo kale guri iyo waxay galaan dhistaan mating and protecting their territory saaraan xayawaanka wuxuu ahaa inay isu tagaan iyo sidoo kale inay dhistaan muxuu ahaa ay ilaashadaan muxuu ahaa dhulkooda waxyaabahaas oo dhan sida xayawaanku waa instinctskooda waa ay u maamulaan oo instinct gaar ah ayaa maamula migrating taranka oo kale instinct asaas. Early psychologists early researchers cilmi-baarayaashii hore ayaa proposed that waxay soo saareen oo sheegeen human beings may also be governed by similar instincts. Bini'aadamkana sidoo kale instincts ama waxyaabo ku dabeecaysan oo jirkooda oo dabiici oo la socda ayaa sidoo kale la yaabaa inay maamulaan. Aragtidan waxay leedahay haddaba waxa ruuxa dhiirigelinaya ficlan u sameeya ku dhaqaajinaya waa maxay? Waa wax dabiici oo ku dabeecaysan oo muxuu ahaay ruuxa dabeecada innate oo ruuxa uu muxuu ahaay ku dhashay waxaan jeedaa aan wax ku dabeecaysan oo ruuxu u dhaxlaya. Aragtida labaad haddaba drive reduction approach to motivation. This approach involves aragtidan baa waxay ku leedahay ku saabsan the concepts of needs and drives. Haley concepts ka ama aragtidan baahida iyo drives culeysyada. Drive reduction haddana waxay noqonaysaa dhimidda culeyska. Marka culeyskan la dhimayo maxay wanaagsan a need is a requirement. Baahi waxaa la yiraahdaa daba ama ereyga need marka la macnayn waxaa la yiraahdaa waa requirement. Waxaa la yiraahdaa waa dooni baahi of some material. Walax loo baahan yahay sida such as food or water. Sida biyaha iyo cuntada. That's shaygaas essential for the survival of the organism. Shaygaas oo muhiim ah baa la yiri noolaanshaha noolahaas inuu noolaado shaygaas uu u baahan yahay oo waxaa la yiraahdaa need kale waa qayb asaasi. When an organism has a need haddaba nooluhu marka uu baahi leeyahay it leads to baahidaas waxay u hogaamisaa to a psychological tension culays dhanka maskaxda ah as well as sidoo kale physical arousal kacsanaan maxaa dhanka duleeda to fulfill the need si uu baahida u buuxiyo bal and reduce sidoo kale uu u yareeyo the tension culayska ay keentay baahidaas darteed baa loo leeyahay drive reduction. The tension culayskan haddaba la yareynayo ayaa la yiraahdaa maxay drive culayskan ruuxa fuulmaya marka ay baahida socdo inta uu wali baahida ruuxi qanay. Marka aragtidan drive reduction waxay leedahay baahida uu ruuxu u qabo inuu culayska dhimo ayaa ku dhiirigelinaysa inuu ficilka noocaas. Drive reduction theory proposes waxaa la yiraahdaa aragtidan waxay soo saaraysaa this connection between internal psychological states and outward behavior. Muxuu ahaa xiriirkan muxuu ahaa psychologiyeed ee u dhaxeeya xaaladda psychologiyeed ee gudaha iyo dabeecadda muxuu ahaa outward-iga dibadda ah ayuu soo saaraya. Haddaba aragtidan baa la yidhi there are waxaa jira two kinds of drives
laba nooc oo drives waxyaaba ruuxa culayska saaray ayaa jira laba nooc primary drives iyo secondary drives ayaa jira primary drivesku waa kuwa ama primary drivesku waxa weeyaan waa kuwa ku lug yeesha baa baahiyaha jidhka sida gaajada oo kale iyo oonka iyo waxyaabahaas waxaa la yidhahdaa maxay waa primary drives oo gaajada iyo markaad ooman tahay culays ku sameeya culayskaas aad dhinto waa inaad wax cunto ama aad wax cabto secondary driveskuna iyaguna sidoo kale waa waxyaabaha aad baratay sida tusaalahaan oo kale muxuu ahaayey baahidaad u qabto lacag iyo waxyaabaha kale la midka ee aan kaaga baahnayn aan jidhka la xidhiidh ayaa la yidhaha secondary drives aragtida saddexaad haddaba intaynan aragtida saddexaad u gelin waxaa jira waxa la yidhahdo xaalad markasta jidhku wuxuu u baahan yahay inuu joogteeyo la yidhahdo maxay homeostasis oo ah xaalad joogta ah inuu jidhku markasta ku jiro tusaale ahaan halkan waxaa ku qoran sawirka increased hunger gaajadu marka ay korodho waxaa la yidhi waxaad u baahan tahay inaad cunto markaad cunto maxay glucose-taada badanaysa glucose-taada hadda markay badso si waxaa diminution hunger gaajadii baa yaraanaysa gaajadii markay yaraato waxaad don't eat waxa ma cunayso kadibna haddana markaad waxba cunina dee mar labaad glucose-tii baa yaraan glucose mar labaad markay yaraato gaajadii baa badanaysa marka waa drive reduction iyo homeostasis waa xaalad joogta ah oo joogteynayo jidhku waa wax wareega oo isku noqonaysa weeyaan aragtida saddexaad haddaba waxay arousal approach beyond drive reduction aragtidan waxaa weeyaan baa leedahay dhimidda culayska wax ka shisheeya weeyaan oo tii hore culayska ayaa la dhimay tan laakiin way ka duwan tahay arousal approach seek aragtidan baa la yidhaha arousal waxay raadinayaan to explain behavior inay sharaxaan baa la yidhi dabeecadda in which kaaso the goal hadafku yahay the goal is hadafku yahay baa to maintain or increase excitement in la joogteeyo baa ama sare loo qaado excitement-ga farxadda ah markaad shayga noocaas aad stimuluska nooca markaad aragto ama waxa noocaas shaalan sharaab baad cabaysa markaad cabto excitement inaad markaas aad excitement-gaaga inaad meel ku joogteyso oona hoos u dhicin ama una sare u kicin ama sidoo kale inaad sare u qaado according to arousal approach to motivation each person tries ruux aragtida annaga u fiirina baa ruux kasta wuxuu isku dayaa to maintain inuu joogteeyo a certain level of stimulation nooc gaara oo muxuu ahaye caris ama dareen and activity as with the drive reduction model sidii drive reduction oo kale this approach just that aragtidan waxay soo jeedinaysaa that if our stimulation and activity levels become too high hadday aad u bataan we try to reduce them tensionkiisu alaamado kale ama drive-ku bato waxaan isku daynaa baa la yidhahan dhinno but laakiin in contrast to the drive reduction perspective laakiin si kasoo horjeeda baa la yidhi aragtidii drive reductionka si kasoo horjeeda xagga tower way ka sameeyeen laakiin si kasoo horjeeda oo dhimidda culayska way ka sameeyeen laakiin si kasoo horjeeda in contrast to the drive reduction perspective si kasoo horjeeda baa la yidhi oo waxay kaga duwan tahay drive reduction aragtida drive reductionka arousal approach aragtidan arousalku also suggests that sidoo kale baa la yidhi waxay soo jeedisaa that if haddii levels of stimulation and activity are too low hadday sidoo kale stimulation iyo level activity uu yahay mid aada u hooseeya we will try to increase them by seeking stimulation waxaan isku dayaynaa baa la yidhi inaynu kordhino oon badino stimulation inagoo raadinayna oo sababta loo raadinayo waxaa weyn horeyba waxaan soo aragnay aragtidan waxay leedahay ruux kasta wuxuu isku dayayaa maxay certain level of stimulation inuu joogteeyo saa darteed heerka inuu hoos uga dhacana ma rabo inuu sare uga kacana ma rabo aragtidan haddaba afraad incentive approaches waxaa la yidhahdaa motivation sport incentive approaches to motivation suggested waxay soo jeedinaysaa motivation stems from motivationku baa la yidhaha wuxuu ka soo bilowdaa from the desire doonitaanka to attain external rewards inaad hesho abaalmarin dibadda ka oo loo yaqaano incentives waxaasaa ku dhiibay waxaas aad hesho daraaddeed waxaan u samaynaysaa aragtida saas ile in this view the desirable properties of external stimuli muxuu ahaaye caris ama carisyo dibadda ka oo aad rabto sida tusaale ahaan waxaas ahaada baa la yidhi grades money ahaada baa la yidhi dhibco money affection food or sex account for a person's motivation waxyaabahan oo dhan aad rabto ee dibadda ka ayaa motivationkaaga qayb ka qaadanaya aragtidan cognitive approach the thoughts behind the motivation aragtidan waxay diiradda saaraysaa aragtiyaheena iyo aaminaadaheenu iyaguna sida qayb uga qaadan karaan motivationkeena dhiirigelinta ama kicin muxuu ahaaye dhaqaajinta wax inaynu wax ku dhaqaaqno inaan
Cognitive approach to motivation suggests that aragtiyahani waxay soo jeedinayaan motivation is a result of people's thoughts. Motivationku inuu yahay natiijo ka dhalata aragtida dadka, beliefs aaminaadaha, expectations filashooyinka, and goals iyo ahdaafta. Hadafka iyo waxaad filanaysaa ama rajeynayso, waxaad aaminsan tahay iyo aragtiyahaaga ayay natiijo ka yihiin oo walba kuwaasay yihiin ayay ku xidhan tahay dhiirigelintaada nolol. Tusaale ahaan, for instance, the degree to which people are motivated to study for a test, waxaa la yidhi heerka ay dadku ku dhiiran yihiin waxay ku dhaqaaqayaan inay test wax u bartaan ama bartaan test laga qaaday daraaddeed, based on waxay ku salaysan tahay and their expectation of how well studying will pay off in terms of a good grade. waxaa la yidhi waxay markasta ku xidhnaan filashadooda ama rajadooda intay leegba hadday si fiican u akhriyaan cashirkan ay muxuu ahaayey ay dib akhriskaasi uu dib u gudi doono awaalkiisa oo ah dee dhibco fiican inay ku keenaan. Cognitive theories of motivation draw a key difference between intrinsic and extrinsic motivation. waxaa la yidhi cognitive theory-gu waxay qeexaan farqiga u dhexeeya maxay intrinsic iyo extrinsic motivation. waa soo aragnay waa kuwii aan soo aragnay intrinsic iyo extrinsic motivation. Humanistic aragtidan kale waxay leedahay humanistic approach to motivation. aragtiyaha ku saabsan dhanka ka eegaya dhanka biniaadamka motivation. The other approach to the history of motivation is waxaa weeyaan the humanistic approach, which is based on taasoo ku salaysan baa lid the work of Abraham Maslow. shaqadii ninka la yidhahdo Abraham Maslow haddaba ninka la yidhahdo suggested that wuxuu soo jeediyey human behavior dabeecadda biniaadamku is influenced by waxaa saameyn ku yeesha a hierarchy or ranking of 5 classes of needs. waxaa la yidhi darajeynta ama muxuu ahaaye darajeynta ama kala sarreynta 5 dabaqadood oo baahiya or motives. He said that wuxuu yidhi needs at the lowest level of the hierarchy. baahiyaha baa la yidhi shaygan baahiyahan kala sarreynta ku jira ama dabaqadaha ku kala jira mid kuwa ugu hooseeya baahiyaha xagga ugu hooseysa ku jiray must be at least partially satisfied. waa in ugu yaraan qayb ahaan la qanciyo baahiyaha qayb ahaan ruuxii uu helo oo de wixii uu baahiyahaas qayb ahaan u buuxso before people can be motivated by the ones at the higher level. kahor intayna ruux dhiirigelin u sameynin kuwa heerka sare ku jira. waxay ka dhigan tahay baahiyo way kala sarreeyaan ta u hooseysa ilaa oo salaan baahiyo asaasiga haddaad helin dee kuwii ku xigay helitaankoodu muxuu ahaaye waxba dhiirigelin kuuma noqonaya. haddaba Maslow's 5 hierarchies of needs for motives from the bottom to the top are as follows. waxaa la yidhi 5 heer kala sarreynta uu sameeyey Maslow iyagoo xagga hooseysa ilaa xagga hoosareysa xaggan ka qoran sidayna u taxayinaa maxay physiological needs ka ugu horeeya, safety needs baa kusoo xiga, love and belongingness needs, esteem needs, self actualization. sawirkan aan ku arkaynaa pyramidkan ama haramkan ayaa si fiican u sawiray. tusaalaan xagga u hooseysa waxaa ku jira maxay physiological needs baahiyaha duleed oo sida cuntadii iyo hurdadii waxyaabahaas ayaa ku jira. kuwaas adoon helin kuwan kore waxba ma waxay ka dhigantahay waa inaad marka hore kuwan ugu yaraan qayb ahaan dad xitaa si buuxda wada helin ugu yaraan qayb ahaan waana heshay intaada kuwa kale u gudbay. Safety needs ayaa ku xiga oo ah baahiyaha badbaado. waa baahida aad qabto inaad ku noolaato bay'o ama deegaan ammaan oo badbaado. waxaa ku xiga love and belongingness. waxaa la yidhi waa jacayl iyo sidoo kale lahaansho meelaad ka tirsantaa inay jirto oo qoys iyo waxaas. The need to obtain and give affection. waxaa ku soo xiga esteem needs or the need to develop a sense of self-worth. Esteem needs ka marka Maslow wuxuu kala qaybiyay 2 qaybood buu kala qaybiyay oo baahida ah baa la yidhi in lagu tixgeliyo oo bulshada dhexdeeda laga arko ruux sharaf leh ayaa la yidhahdaa esteem needs. marka 2 esteem needs ka kala qaybiyo oo la yidhahdaa mid koobaad inaad adigu horta marka hore istixgeliso oo ruux madax bannaan oo sharaf la noqoto. ta labaadna waxaa weeyaan doonitaanka inaad bulshada dhexdeeda lagu sharfo. salaam bulshada dhexdeeda inaad maqaam ku dhex yeelato ruux la sharfayo kala aad noqoto. marka waxa uu si u dambaysa oo tashanaada self actualization inaad garwaaqsato muxuu ahaayey naftaada xagranta awoodahaaga iyo wax kasta oo ruux noqon karo inaad noqoto ayaa la yiraahdaa.
haddaba waxaa jira waxa la yidhahda maxay conflicts of motives and frustration. Conflicts of motives isku dhacyada baa la yidhi motiveska waxyaabihii ku dhiirigelinaya oo ku riixaya ficilka ku riixaya aad samayso oo isku kor yimaado, iyo sidoo kale frustration niyad jab mararka qaarkood waxa laga yaabaa inuu keeno oo dee go-aan qaadashada daraaddeed. Based on the source of motivation and the importance of decision, iyadoo ku salaysan baa la yidhi ama ku xidhan isha aad ka helayso muxuu ahay dhiirigelinta iyo sidoo kale muhiimadda uu iska leeyahay go-aanka aad qaadanaysaa. People usually face difficult choosing among the motives. Dadku baa la yidhi waxay badanaa dareemaan culays inay kala doortaan waxyaalaha qaadanayaan go-aanka iyo waxa qaadanayaan. There are just a few of the motives. Waxaa jira baa la yidhi qaybo yar oo ka mid ah maxaa motiveska that may shape, kuwaasoo laga yaabo inay saameeyaan a trivial decision. Tusaale la iska indhatiri. When the decision is more important, marka go-aanka aad qaadanaysa baa la yidhi mid aad muhiim u ah. The number and the strength of motivational pushes and pulls, tirada iyo xoogga ay iska leeyihiin waxyaabaha ku jiidaya ama ku riixaya dhiirigelintii are often great. Badanaa way badan yihiin oo go-aan ka muhiimsan yahay ayaa waxyaabaha iska ama ha sameyn ku diidaya ama kugu dhiirigelinaya way badanayaan, creating far more internal conflict and indecision. Taasoo abuuraysa baa la yidhi isku dhac gudahooda aad u badan iyo sidoo kale go-aan darro. haddaba waxaa jira 4 basic types of motivational conflicts. waxaa jira baa la 4 nooc asaasi oo motivational conflict isku dhacyadan waxyaabaha ku dhiirigelinaya jira. 4tan hadda waxay kala yihiin approach conflicts, avoidance conflicts, avoidance conflicts, iyo multiple avoidance conflicts. Marka tan koobaad ee la yiraahdo approach conflicts waxaa la yiraahdaa waa marka aan kala dooranayno laba shay oo labadaba desirable oo aan rabno. laba shay oo rabto iyad kala dooranaysa. Tusaale labada shay waad rabtaa ka soo qaad example ka buuga ku jiro kale wuxuu leeyahay going to movie or a concert. inaad tagto sanana kale inaad film soo daawato ama inaad meel bandhig ama riwaayad lagu sameeyo daawato, labadaba waad rabtaa laakiin waad mid inaad doorato rabtaa. muxuu ahaay conflictiga nooca isku dhaca noocaas ee labadan doonitaan ka la yiraahdo maxay approach conflicts. waa isku dhac ka imanaya laba shay oo labadaba rabto inaad tagto, riwaayadana inaad ama bandhiga inaad soo daawato ma rabtaa, film inaad labadaba rabtaa. marka isku dhaca halka ka imanaya ee midkee tagtaa ayaa la yiraahdaa approach conflict. avoidance conflicts isaguna waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa waa laba shay oo labadaba aad rabto. wixii af Soomaaliga loo nijiro kale laba daran mid dooro wixii loo nijiro kale waxaa la yiraahdaa waa marka aad kala dooranayso laba bedel, two undesirable alternatives, laba shay oo aad labada mid rabto markaad dooranayso. Tusaale ruux ayaa waxaa lagu qasbay baa la yidhi inuu iibiyo guriga qoyska, guriga xafiiska deganeed inuu iibiyo ama inuu ku dhawaaqo muxuu ahaayey waxaa loo yaqaano bankruptcy oo ah inuu musallafo inuu kacay. Tusaale shirkad buu iska lahaa ama wax kale oo ganacsi ula inuu ganacsigiisa ka kacay ama inuu muxuu ahaa guriga iibiyo, labada midkood ku dhawaaq baa oo yaa lagu qasbay. marka labada midna uma fiicno. laba shay oo labada midna aad rabin oo kala dooranayso isku dhaca halka ka yimaada ayaa la yiraahdaa maxay avoidance waa laba daran mid hore weeyaan. tan saddexaad waxaa la yiraahdaa approach avoidance conflict. wuxuu dhacaa baa la yidhi marka event gaari ama dhacdo activity-ga hawl shay gaari uu leeyahay shayaal fiican uu leeyahay, dhinac fiican oo soo jiidanaya uu leeyahay, dhinacyo xun uu leeyahay. waa hal shay baa labadaba leh. tusaale ahaan waxaa la yidhi arday freshman ayaa wuxuu rabaa inuu bilaabo maxay dating, shukaansi inuu bilaabo rabaa. sidoo kale wuxuu ka walwalsan yahay maxay inay haddii uu hawlaha galo ama haddii hawshaa gasho hawlahaas gasho inay waqtigeeda oo dhan ay halkaas kaga baxayaan. marka tusaalahaas oo kale ku socon tan afraad waxaa la yiraahdaa multiple approach avoidance conflicts. tan waxay dhacdaa baa la yidhi marka laba ama in ka badan oo shayaal oo isbedel kala dooran kartaa ay laba shayaashaas leeyihiin dhinacyo fiican iyo dhinacyo xun labadaba ay wada leeyihiin. tusaale ahaan laba shaqaad kala dooranaysaa, midi waxaa shaqadaas waxay bixinaysaa maxay mushaar aad u fiican, sidoo kale waa shirkad fiican loo yaqaano, waqtiga la shaqeynayo laakiin waa saacado badan,
sidoo kale waxaa dib lagugu meelayn oo meeshaad ka shaqaynaysaa waa meel cimiladeedu ayna fiicnayn. sidoo kale shirkadda kale ama shaqada kalena waxaa weeyaan baa la yidhi waxay leedahay fursado gaar ah tusaalahaan oo kale oo faa'iidooyin gaar ah meel cimilo fiican laakiin mushaar badan ma bixiso tii hore xagga mushaarka ku fiicnayd. sidoo kale tan waxaa weeyaan work schedule-ka ama jadwalka shaqo waa unpredictable midaan la saadaalin karin. marka mid kasta meelay ku fiican tahayna way leedahay meelna way ku xun tahay. mushaarkeedii waa yar laakiin meel cimilo fiican bay jirtaa, tanna meel cimilo xun bay ku taalla laakiin mushaarkeedii fiican. marka mid kasta waxay leedahay maxay wax fiican iyo wax fiican iyo xunba way leedahay. marka conflictiga noocaas waxaa la yidhahdaa multiple approach avoidance conflict.